asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta ku xiran aflax online. habeen wanaagsan ama maalin wanaagsan meel walba oo aad joogtaanba. insha allah kulle barnaamijyadii saan idinka ballan qaaday xalayto waxay noqon doonaan kuwa joogto ah haddii ay tahay casharada iyo barnaamijyada kale oo youtube-ka lagu soo shubaba. xalay waxaan umalaynaa markaan hadlaya teleefonkayga kuma aanan qorin, laakiin insha allah mustaqbalka videoyada waxaan ku qori doonaa emailka lagala soo xiriiri karo, iyo waxaan ku qori doonaa haddii ilaahay idmo meesha aad igala soo xiriiri kartaa teleefonkayga iyo emailkaygaba. waxaa jiray barnaamijaan hadda ka hor bilownay oo ahaa in luuqadda afka ingiriisiga qofka markuu baranayo waxyaalaha laga barta ay ka mid tahay inuu qofka uu akhriyo joornaalada ama buugaagta, maktabadaha ama librariyada tago, ka samaysto waxa loo yaqaano membershipka, kabacdina buug ka soo qaato si uu u akhristo. taa waxay kaa caawinaysaa inay kororto aqrintaada iyo inaad isku daydid inaad ereyada adiga naftigaaga aafahantid. ingiriiska qof kuma bari karo haddaadan adiga baran. marka qayb waxaan sameynayaa insha allah aan idiin soo gelin doono isbuuciiba dhowr mar oo ah joornaalada waxa lagu qoray oon aan wada akhrino, kabacdina macnihii wuxuu ilaahayna haleeshiyey aan macnayno, kabacdina wixii ereyo ah ama grammar ahaan aan fiirino. maanta waxaan rabaa inaan kusoo qaato jaraa-idada gobolka Minnesota qoraal lagu qoray. qoraalkaas warkaa lagu qoray baa wuxuu sheegayaa xanuunka jadeecada la yiraahdo ayaa wuxuu ahaa mid dad Soomaaliya oo ku dhaqan gobolka Minnesota laga helay kiisas badan oo xanuunka jadeecada ah. waxaa kaloo dhanka kale jirta in dadka caruurta yaryarka ah ee Soomaalida badankood waalidiintooda iyagoo ka baqaya xanuunkan loo yaqaano autism-ka ay caruurtooda u diideen qaarkood inay talaalaan oo ay ka talaalaan xanuunkaas jadeecada ah. talaalkana waxaa la yidhahdaa MMR. marka dhacdadii ayaa maantana haddana qof kale joornaalka maanta lagu soo qoray, taariikhda waa bishii 7 14 marka bal waa akhrinaynaa. wuxuu leeyahay Hennepin man confirmed to have measles. Hennepin man waa nin ku nool Hennepin ama nin reer Hennepin ah. Hennepin waa degmo ku taala gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada Minneapolis. waa degmo. Hennepin man, nin degaan ku ah Hennepin, confirmed ayaa waxaa la xaqiijiyey to have measles, in uu qabo xanuunka jadeecada. qofka lama sheegin qofka uu yahay, laakiin waxaa la yidhi waa nin degan degmada Hennepin ayaa waxaa la xaqiijiyey in uu qabo xanuunka jadeecada. marka jaraa'idkan ka soo qaaday waxaa lagu qoray St. Paul. St. Paul waa magaalada caasimadda u ah gobolka Minnesota. magaalada Minneapolis waa magaalada ugu weyn oo ganacsiga ah I believe, laakiin meesha dowladdu ay degan tahay waxaa la yidhahdaa St. Paul. marka Soomaalidu badanaa markay joornaalada wax ku qorayaan ma sameeyaan, laakiin adduunka waxaa lagu bilaabaa kor meesha qofka qoraaga uu joogo baa lagu bilaabaa. St. Paul waxaa lagu qoray, marka waxaa lagu bilaabay healthy officials have confirmed an additional case of measles in Minnesota. wuxuu leeyahay qoraalka healthy officials. health waa caafimaad, officialsna waa mas-uuliyiinta. have confirmed ayaa waxay xaqiijiyeen an additional case, kiis kale ayay xaqiijiyeen of measles oo ah xanuunka jadeecada in Minnesota, degmadan gobolkan Minnesota. marka aan ku celiyo, healthy officials, mas-uuliyiinta caafimaadka, have confirmed
ayaa waxay xaqiijiyeen an additional mid kale oo dheeraada case kale oo dheeraada of measles oo ah xanuunka jadeecada in Minnesota, gobolka Minnesota. Okay, aanu u gudubna ta ku xigta marka waxaan filayaa inaad arkartaan. wuxuu leeyahay qoraaga wuxuu sida u qoray the Minnesota Department of Health. The Minnesota Department of Health waxay noqonaysaa waaxda caafimaadka gobolka Minnesota. waaxda caafimaadka gobolka Minnesota said ayaa waxay tiri Thursday, maalintii khamiista ahayd. maanta aniga jimca ay tahay marka hadalka ay oranayaan waa khamiis oo shalay ay ahayd bishii 7 13keeda ay ahayd oo sanadkan 2017. khamiistii ayuu wuxuu yiri the new kiiska cusub is associated waxaa lala xiriirinayaa with the measles outbreak dilaacii ama qaraxii uu qarxay ama dilaacay jadeecada ayaa lala xiriirinayaa that has been occurring mainly in Hennepin County since late March. wuxuu leeyahay qoraagu waxay yidhaahdeen kiiskan cusub waxaa lala xiriirinayaa inuu ka mid yahay jadeecadii ka dilaacday dhowaan oo ka dhacaysay degmada Hennepin ilaa iyo bishii Marchtii aynu soo dhaafnay. late Marchtii aynu soo dhaafnay. Okay, ereyga the waxaa weeye waa waxa la yaqaano baa loo isticmaalaa. af Soomaaliga waxay ku noqotaa dhowr nooc. ka bay noqon kartaa, mararka qaarkood da bay noqon kartaa, mararka sha bay noqon kartaa. Soomaaliga waa ka duwan yahay, laakiin Ingiriis ahaanta waxa la isla yaqaano markaan ka hadlayno. tusaale ahaan the Minnesota Department of Health waa waxa la isla yaqaano, ma jirto wax kale oo magaca la wadaaga. waaxda caafimaadka gobolka Minnesota. Okay, marka the Minnesota Department of Health waaxda caafimaadka ee gobolka Minnesota say Thursday ayaa waxay yidhaahdeen the new kiiskan cusub is association waxaa la yidhahdaa la xiriira he associates with his friends. wuxuu la xiriiraa saaxiibadii. association waa xiriirka with the measles outbreak jadeecadii ka dilaacday that has been occurring oo ka dhacaysay mainly waxaa la yidhahdaa gaar ahaan waa gaar ahaan in Hennepin County ka dhacaysay degmada Hennepin since late March ilaa iyo bishii March ay arrinta dhacaysay. Hennepin County waa meelaha ugu badan oo Soomaalidu ay degan tahay. ninkan lama xaqiijin inuu Soomaali yahay iyo cid uu yahay, laakiin dadka waxay hadda u maleeyaan qofku markii la yiraahdo jadeeca meeshan ku dhacday inuu qof Soomaali because dadka 70 iyo xoogaaga ay ku dhaceen Soomaali bay badnaayeen. Okay, qoraalkan sii wadno. The newest case is unvaccinated man who lives in Hennepin County. New waa taqaanay. Newest waa maxay? waa kan ugu cusub. marka waxa weeye the newest case kan ugu cusub oo hadda dhacay is waxa weeye an unvaccinated man, nin aanan la talaalin. vaccination waa talaalada, vaccinate waa ficilkii, unvaccinated anna waa aan lagu samayn. waxa weeye the newest kiiskan cusub is waxa weeye unvaccinated, qof aanan la talaalin. unvaccinated man waa nin aanan la talaalin who lives kaasoo ku nool in Hennepin County. wuxuu ku nool yahay ninkaa aanan la talaalin degmada Hennepinka ayuu ku nool yahay. Okay, halkaas waxaan ka soo qaadan karnaa ereyada associate waa la xiriira, measles waa jadeeco, outbreak waa dilaac, occur ereyga la yiraahdo waa wax soo noqnoqda oo dhaca,
mainly na waxay noqonaysaa gaar ahaan, mainly gaar ahaan. Hennepin County since waa ilaa iyo I know you since you were a child. I know you waan ku garanayay since that you were a child, ilaa intaad cunug yar ahaydba. Okay, Hennepin County way ka dhacaysay since late March, ilaa iyo bishii March ee lasoo dhaafay bay ka dhacaysay. The newest case-kan cusub is unvaccinated man, waa nin aanan la talaalin, who lives kaasoo ku nool Hennepin County. Ogoobay ayagu marka waxayba leeyihiin dadka diiday ama dadka aanan qabin talaalka MMR-ka ayaa xanuunkan uu ku dhacaya. Haddana marka kiiska waxay qorayaan in qofka ninkan la leeyahay waxaa ku dhacay jadeeco inuu yahay asagana nin aanan qabin talaalka MMR-ta ee loo qaato jadeecada. aanu sii wadna sheekada. Officials, mas-uuliyiinta ama madaxda said waxay yidhaahdeen the man ninka visited wuxuu booqday several public locations, dhowr meelood oo ka mid a baraha bulshada ay iskugu tagaan ayuu kulmay in Hennepin oo ku taala meesha degmada la yiraahdo Hennepin iyo Ramsey, degmada kale ee la yiraahdo Ramsey iyo degmada kale ee la yiraahdo Carver counties, degmooyinka. While infectious, isagoo markaa xanuunkii qaba oo fidin karaayo. Infection waa taqaanaan, laakiin infectious waxaa waaye markuu qofka uu xanuunkii uu fidin karo. waa garanay. Daaru socono, the health department is working with these counties to follow up on any money exposure as possible from most recent case. Marka waxay leeyihiin the public department, waaxda caafimaadka, is working, waxay la shaqeynaysaa with those counties, degmooyinkaas. Okay, halkan marka waxaa lagu tusay waaxda caafimaadka waatan degmooyinka ayaday hoos yimaadaan, with the counties, degmooyinka, to follow up, say u dabagalaan ama ay ula socdaan, to follow up say ula daba socdaan on any money exposures, any money exposures, inta uu ninkaasi la kulmay ama uu arkay, as possible from the most recent case, dhawaanadan kiisaskii dhawaanadan, most recent case, dhawaanadan inta dambe. Waxaa laga yaabaa marka inay sameeyaan, inay tagaan hadduu maqaayad tegi jiray, hadduu iskuul tagay, hadduu ninkaa maktabad tagay, meelaha uu tagay oo dhan inay u tagaan. Ardayda oo kale marka qaarkood waxaa dhacda haddii qof uu xanuunadan fida ah uu qabo oo iskuul u dhigto, waxay u tagaan classeeskooda, waxayna weydiiyaan ardayda cid uu baaritaan bay ku sameeyaan. Marka that's what they're trying to do. Okay, the man, haddana waxaa sheekadii aan ugu noqono dib, has been asked, ayaa waxaa la weydiistay oo dowladda weydiisatay, yacni lama karantiilin bay ku leeyihiin, to stay home, inuu guriga joogo. lama kaxaynin guriga, lagama kaxayn meel kale lama geynin, laakiin he has been asked, waxaa la weydiistay to stay home, inuu guriga joogo. Stay home, stay waa joogitaan, home na guriga. While potentially infectious, inta uu ninkaasi uu xanuunka laga yaabay inuu qabo. Okay, waxaa laga yaaba dadka dawooyin waxbay ku bilaabayaan, laakiin waxaa leeyahay qofkii guriga joogo. Several unvaccinated people were exposed to this case, so there might be more cases to come. Waxay yidhaahdeen several unvaccinated people were exposed to the case. Qofkii waxaa laga soo qaaday case markee magaciisa lama rabo in la sheego oo lagu xadgudbo xuquuqdiisa qarsoodiga oo ah qofka xanuunadii qaba inaana lagu qorin jaraa'idada. Waxay leeyihiin several unvaccinated people, dhowr qof oo aanan talaalayn, were exposed, ayaa waxay la kulmeen ama ninkan meeshuu joogay to this case, kiiskan ninkan xanuunka qaba ama kiiskan. So marka waxaa dhici karta there might be more cases, waxaa laga yaabaa kiisas badan inay soo baxaan, more cases to come, kiisas badan inay soo baxaan.
The latest case, kiiskan ugu dambeeya, arrintan ugu dambeysa, brings ayaa waxay keenaysaa ama ka dhigaysaa the total numberka guud ahaan dadka xanuunkan laga helay ee gobolka Minnesota in the measles outbreak ee shadeecadan ka dilaacday gobolka Minnesota to 79 ilaa iyo waxay ka dhigaysaa 79 kiis ama 79 qof. waa la yaab arrintan dadka Soomaalida ah siyaabo fara badan bay u saameyn doontaa. gobolka dhan way ku baraarugsan yihiin. waxaa jirta tallaal la yiraahdo MMR-ta oo dadka cadaanka badanaa carruurtooda siiyaan. dadka qaar baa waxay yiraahdaan xanuunkan asagaa sababay xanuunka carruurta ayaan hadlin. waalidiinta marka Soomaalida aad baa marka waxaa u badatay waalidiinta aan carruurtooda tallaalka MMR-ta aan siinin. maadaama ay badatay kiisaskana ay dhaceen, waxay u badan tahay dowladdu inay sharci ay ka soo saarto. okay, marka intaasaan rabaa inaan idinla wadaago dhowr erey aynu eegno. outbreak waxaa la yidhaahdaa sida qaamuuska uu qorayo a sudden appearance, wax isla markiiba soo baxay ama soo boodo of something, wax especially of a disease markii uu yahay gaar ahaan cudurka, something else dangerous ama wax khatar ah, or unpleasant ama waxaana lagu farxin. waxyaalahaas oo dhan waxaa loo isticmaali karaa, laakiin marka aynu ka hadlayno jadeecada Soomaaliga naftigeeda waxyaalo badan baa dadka ka qaldan. ma waxaa la oran karaa waxaasaa dilaacay, waxaasaa dhulkii dadkii ka qarxay. dadka qaar baa waxay isticmaalaan qarxay, laakiin I don't think in loo isticmaalo. waxaa ku habboon tahay waxaa ka dilaacay jadeeco. okay, marka sudden appearance waa wax isla markii kusoo booda of something, wax soo booda way especially of a disease, gaar ahaan cudurka, or something else dangerous, wax khatara ama unpleasant ama waxaan ku farxad gelin. confirmed, ereyga confirm waa xaqiijin, waa marka waxa hubo ama aan kuwa xaqiijiyo. af Soomaaliga waa hubo ama hubintin. firmly fixed in particular habit, wax si aad ku og tahay. way of life, inuu qaabkaas noloshiisa tahay. unlike to change ama aan isbedelayn. confirm waa xaqiijin ama hubaal. official haddaad maqashid, Soomaalida waa marar badan oo ka maqshanalo, laakiin halka waxay ugu jirtaa a person, qof, who has a position, qofkaasoo leh chago. position waa chago of responsibility, oo mas-uuliyadda ah in an organization. organization wuxuu doona ha ahaado, ama hay-ad ha ahaato, ama dowlad ha ahaado, qofka mas-uulka ah waxaa la yidhahdaa official. this is a official press release. waxaa weeye shir jaraa-id oo ay sii daysay madaxda ama dadka mas-uuliyiinta. marka official waxaanu oranaynaa waa mas-uul ama qof u shaqeeya dowladda. ereygan baan isweydiinayay. Soomaalida hadda waxaa ka maqlaysaa baraha bulshada dhalinyarada saxaafadda ka shaqeeya mararka qaarkood ay u isticmaalaan. baraha bulshada waxay u turjumaan waxaan anigu marka aan ku tilmaami karo ama la oran karo waxa social media la yiraahdo, sida Facebook oo kale, YouTube-ka. waa baraha bulshada, qof walba wuxuu doono u gelin karo. ayay waxay u turjumaan baraha bulshada, laakiin baraha bulshada waxaa ah public location. ereyga public location ayaa markaa aniga saan u turjumaada igula habboon. public location ayaa waxay tahay baraha bulshada, meelaha ay dadka ay ku kulmaan. laakiin marka la yiraahdo social media waa saxaafad. bulsho marka waxay noqonaysaa saxaafadda bulshada ama saxaafadda dadweynaha, oo ah meel qofku gelin karo. laakiin marka la yiraahdo baraha bulshada waa meel dadweyne, laakiin ereygii saxaafaddii baa ka maqan. marka public location ayaa waxay ku habboon tahay baraha bulshada. social media waxay ku habboon tahay saxaafadda bulshada. waa si aniga la tahay. adigana waxay kula tahay, waad nala wadaagi kartaa saaxiib.
aan u gudbo ereyga kale aan rabo inaan isla eegno. Ereygan kale isagana maadaama aan niri badanaa de waxyaalaha baahida dadka u haysa waxaa ka mida waxa loo yaqaano waxaa ka mid caafimaadka. marka measles waa jadeecada. measles waa jadeecada. marka measles waxaa weeye infectious disease, xanuun macnaheeda la kala qaado, especially of children, gaar ahaan caruurta, which produces kaasoo qofka kasoo saara jirkiisa small red spots, dhibco cadcad all over the body, jirka oo dhan. waxaa weeye measles waa an infectious disease, xanuun fida oo la kala qaado, especially of children, gaar ahaan caruurta, which produces kaasoo ay qofku uu kasoo baxo. hadda kelmadda produce oo kale wax soo saaritaanna way noqotaa, oo markaa laga hadlayo wadanka wax soo saaritaan buu isticmaalaa production and produce baa la yidhahdaa. laakiin halkan waxaa u isticmaala oo ugu jirtaa kasoo saara jirkooda small red spot, wuxuu kasoo saaraa dhibco casaana oo yaryar ayuu kasoo saaraa all over the body, jirka oo idil. saaxiibayaal, qaybtaa yaroo muhiimka ah waxaa waye waxyaalaha jaraa'idada qoreen. insha allah habeen dambena mid kale oo ku saabsan jaamacado iyo waxbarashada baan idiin soo gelin doonaa. waxaan rabaa inaan idiin sharaxo telefoonka 712-432. telefoonkaas ka bilowda 712-432-5887 waa telefoonka, waa qofkuu soo wici karaa. haddaad bress 0 raaxdid fariin waa ii dhaafi kartaa. marka waxaan jeclaan lahaa ardayda inay practice sameeyaan oo aad soo wacdid oo aad fariin ii dhaaftid. fariintaada adigoo ku hadlaya ingiriis ama wixii aad baratay, waa kadibna waxaan samayn doonaa muddadii markaan mar joogaba ereyada ama hadallada ardayda ee ugu talagaleen inay la wadaagaan ayaa waxaan usoo gudbin doonaa adigoo ku hadlaya luqadda afka ingiriisiga, dadka inay kula dhageystaan. sidoo kale teleefonkayga xalay waa ka iloobay, laakiin waa kaa shaashada ku qoran. haddaad rabtid casharada gaarka ah ee bilaabanaya bisha August 1 waa Axmed Cabdi, waad ila soo xiriiraysaa emailka ama telefoonkaas. aad ba u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.